waa laba wiil oo isku dheggan, isdhunkanaya, isdhuuqaya. Subxaanallah, waa laba qaniis ama qowmuluud qarsan waayey dhaqankii reer galbeedka ee ahaa rag wax iska raadiya. Halkee ayay ku nool yihiin duulkan? Maxaa ka jira in iyagoo isdul saaran ay dowladdu soo qabatay? Maxaa ku kalifay? Ayay kaga sheekaynayaan muuqaalkan aan kuu soo wada daawadee. Yaabkii ugu weynaa ayaa xilligan taagan. Subxaanallah. Marka hore daawadee, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad subscribe taabato channelkeena, like taabato oo aad la wadaagto saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada si aan mar waliba kuu soo gudbino dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee xilligan taagan iyo sidoo kaleeta warar xaqiiqda ku salaysan. sidoo qalbigaygu yahay qalbigaaga ayaa labadeenu mar wada qasanaaye wadaya naftahooyo cabdu. Ma ahan lamaane rag iyo dumar ah, waxa sidaan isugu dheggan, isdhunkanaya, isdhuuqaya. Waa laba qaniis ama qowmuluud soo minguuriyey ama caadaystay dhaqankii qaabka darnaa. Ilaahay ha naga najeeye. Waa dhaqan qoom dhan lagu halaagay, dhagaxna cirka looga soo daadiyey. In ummad boqolkiiba boqol islaam ah aysan ka suurtoobin arrintan, balse maanta ayay caddaatay dhaqankii reer galbeedka ee ahaa in rag kale uu wax ka dayo. Horaa loo yidhi haddii la yaabo yaasiinka ayaa la akhristaa. Ha yaabin, waxa soo socdo ayaa ka sii daran arrintan. Labadan wiil ayaa caan ka ah baraha bulshada, gaar ahaan aaladda TikTok-ga, iyagoo soo geliya muuqaalo diidaya damiirkaaga dadnimo iyo dhaqanka diinteenna suuban. Waxaynu ku noolaayeen markoodii hore magaalada Burco ee maamulka Somaliland, halkaasi oo laga soo ceeriyey kadib markii dhaqankooda lala yaabay oo dadkii ay si weyn ula yaabeen dhaqankan aadka u qaabka daran ee rag kale dhunkanaya, ku dhegaya, isdhuuqaya, iyagoo aad moodo lamaanihii Hindiga ahaa ee rag iyo dumarka ahaa. Waxayna markaasi kadib u soo guureen magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Halkaasi ayayna ka sii bilaabeen dhaqankii qaabka darnaa ee qowmuluudnimada ahaa, iyagoo bulshada u soo bandhigayay muuqaalo aysan indhaha daawo karin, kuwaasi oo ah dhaqankii ugu xumaa ee baraha bulshada lagu arka. Haddaba dhaqankoodii oo aad u sii darnaaday iyo iyagoo dhalinyaradii ku boorinaya inay qaataan dhaqankooda halaysan, waxaa arrintaasi ogaaday booliiska magaalada Jigjiga, waxaana la soo qabtay mid ka mid a labadaasi wiil oo ahaa qowmuluudkii weynaa. Haddaba wiilkan ayaa sheegay in kan kaleeto uu yahay saaxiibkiisa, ayna aad waxa ugu weyn yihiin dhaqankan qowmuluudnimada ah. Waxaana caan uu ka yahay midkan la soo qabtay aaladda TikTok-ga, isaga oo leh ciwaan uu ku soo gudbin jiray dhaqan xumadaas ugu weyneed. Waxaana sidii haweenkii oo kale ahaayeen kuwo isku suuroonaya, isku dhegdhegaya, isdhuuqaya, isdhunkanaya. Acuudu billaahi mina shaydaani rajiim, kuwii la dhihi jiray waaye kuwaane. Haddaba waxa ay soo qaadan jireen dharka dumarka ama labiska sida diraca oo kale, waxaana kuwaani la dhihi karaa qowmuluud. Kolley rag lama dhihi karee magac adiga u bixi daawade hadda i daawanaya. Laba wiil lama dhihi karee, waa laba qaab daran oo dhaqankii haleysnaa la yimide. Waxaana ay ahaayeen qolooyinka faafiya qowmuluudnimada. Isaga wiilka la soo qabtay ayaan ula jeedaaye iyo midka kale ee TikTok-ga caanka ka ah. Waxaana markiisii hore wiilkaasi uu ku soo galay niikada sida dumarka oo kale ah, kadibna dhaqankii ayaa la sii dheeraaday, isagoo bilaabay in uu keensado wiil kale, iyagoo isku dhegdhegaya oo isdhunkanaya, isdhuuqaya.
haddaba waxa ay soo xiran jireen maryaha dumarka iyagoo u soo labisanayay qaabka gabdhaha oo kale, waxaanay ahaayeen kuwa isjilcinaya, isku suuroonaya, dhaqan aana la sheegi karin qaabka uu yahay, balse muuqaalkan aad ka arki karto daawade. haddaba waxaa magaalada Jigjiga xilligan ku xiran kii weynaa ama kii ugu weynaa ee labadan wiil ee qoomuluudnimada faafinayay, isaga oo lacag ku qaata inuu dhaqan dooriyo dhalinyarada xilligan joogta baraha bulshada qaybaheeda kala duwan. wax fudud ma aha in dhaqankaasi aadka u daran ay sahashadaan xilligan dhalinyarada jirto ama in laga aamuso, waana muuqaal diidaya damiirka qofnimo iyo ka raganimo in rag uu rag kale ku dhadhago dhuuqo ama dhaqankii qoomuluudnimada ee lagu yaqaanay wadamada aan diinta islaamka haysan in xilligan ay baraha bulshada ku soo badanayso. haddaba bulshada ayaa si weyn uga falcelisay, iyagoo sheegay in laga qabto haddii kalena ay horseedi doonaan dhaqan aan laga soo waaqsan karin, iyagoo digniino kala duwan ka bixinayay. balse ugu dambeyn fariintaasi ay gaartay booliiska magaalada Jigjiga, iyagoo ku dhaqaaqay si dhaqso lehna gacanta ugu soo dhigay kii ugu weynaa ee dhaqankan faafinayay bulshada dhexdeedana doonayay inuu kaga dhigo dhaqankaasi aadka u qaabka daran mid caadi ah. marka hore daawada, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad kanaalkeena subscribe taabato, like dhahdo, sii share garayso oo la wadaagta saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada. qaybta commentiga waxaa noogu soo qortaa araahdaada, sidee ayay kuula muuqataa dhaqankan qaabka daran ee xilligan ku soo badanaya baraha bulshada? ma habboon tahay xilligan in la sii daayo ninkan faafinaya dhaqankan halaysan? muxuuse yahay xukunka aad ku fulin lahayd labadaasi dhaqanka aadka u qaabka daran xilligan la yimid baraha bulshada ee doonaya in ummad islaama 100% ay dhaqanka ka dooriyaan, doonayana in ay dib u soo celiyaan dhaqan qarniyo ka hor lagu halaagay qoom la yimid dunida? ilaahay hanaga badbaadiye. daawade, waxaan saaxiibayaal si aad idinkaga codsanayaa inaad muuqaalkan sii sheer garaysaan oo aad la wadaagtaan saaxiibadaada kala duwan si ay uga digtoonaadaan xaaladahan halista ah ee dhalinyarada loo maleegayo oo ah dabin ay doonayaan in dadka dhaqanka suuban ee diinta islaamka ay ka bedelaan, iyagoo doonaya inay u weeciyaan dhaqan kaleeta, kaasi oo ah mid ay adag tahay in dhalinyarada xilligan jirta ee diinta iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee suuban aad ugu adag aana laga weecin karin. haddana muuqaalkan waxaa gaarsiisaa inta wanaagga u saaxiibka ah ee doonaya in xumaanta bulshada laga dhex qabto. sii sheer garay oo la wadaag saaxiibadaada kala duwan meel waliba oo ay dalka iyo dunida dacaladeeda ka joogaan.